بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال كلنا وعنا ونكسل ميل والبو نقد داونيسان هالكني ومقال باهية سيئنا برامج كيدي سو غارينا برامج كحقوقال هو نوغو براتين هذا هاني هو كالئين عن هودا إدين سو مرين هبين دا إسنينتا 3-4 خميستا إيو جمعة على برامج كحديث وصارت لما كان يدلس وسياني واحد جليل عثمان سمو وحان ديردا كسارنا مرها لحليل الصومالي دا إيو جيسكا أفريكا هدو بقدر برامج كعاوة وحا مرتين وقع فرح معلن oo soo noqday gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka dalkan Kenya isla markaana siyaasi Soomaaliyeed oo ka faalooda muraha la xiriira Soomaalida iyo guud ahaan geeskan Afrika waxaan wax ka weydiin doonaa arrimaha ka jira dalkan Kenya Soomaaliya iyo Ethiopia intoba in farax ku soo dhawo barnaamijka xuquuqaad ee muqaalbahiyaha CNN waan ku faraxsanahay kulan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام برضو حنجعلنا هنا وحكا ويدينا أحرم بدن ولا حريرة Soomaalida iyo guud ahaan geeskan Afrika oo wadan u dul istaagi doona Soomaaliya, Kenya iyo Ethiopia. Haddii aan ku hormarno dalkan Kenya isbuucyadii tagay waxa aad loo hadalhayay oo uu madaxweynaha hadalla jeedin ka dhageystay guddi lagu magacaabay PPI oo dib u heshiisiinta ama mideynta Kenyaanka loogu magacaabay. Bal haddii aad faahfaahin ka siiso shacabka Soomaaliyeed ee daawanaya telefishinka ee barnaamijkan isha ku haya guddigaasi iyo waxa uu ugu dhignaa Kenyaanka dalkan. guddiga waxay ka shaqeynaa wax la yiraahdo Building Bridges Initiative waxa weeyaan wadankan mar allaala markii doorasho la galo wadanka uu kala jabaa oo colaad xun baa dhacda oo waa la kala fogaada dadkii sidii la isku soo celin lahaa initiative ayaa guddiga uu ka shaqeynayay wuxuuna salka ku hayay handshake wax la yiraahdo mise gacan maartay in la heshiis oo madaxweynaha iyo ninkii mucaaradka ahaa oo xisbigii mucaaradka ahaa oo doorashada soo dhaafnay London Spain inuu ku guuleystay laakiin laga shubtay oo Raila Odinga la dhahay guddigan hawsha uu hayay wax cusub maaha annaga wadankan Kenya halka wadanka kaliya oo 5 sano doorasho ay dhaceysay mustacmarka soo uga tagay ilaa min hada dhacdo oo saas maartay wadamo yar oo Southern Africa sida Namibia iyo Botswana iyo South Africa iyagana way fursada way heleen لكن أنا كان democracy بمعنى الكلمة أو بالضبط إماها وان لك لا شبانيو مارتي ما قاعد ديمقراطيه كي هي like يعني كريمس exactly yes markasta oo dhibaato ay dhacdo oo la isku hor imaado 2007 dhibaato dhacday 2013 dhibaato dhacday 2017 dhibaato dhacday 2002 kaliya ahayd ku afar ku tiriska oo dib weyn u san dhicin uu jiray dib laakiin dib aad u sii balaaran oo madaxweynayaasha dadka isku haysteen kama dhicin midaayada marka waa haddana waxa la gudi hal saaro wala dib hal isku soo noqdo wadankii uu burburahaya waa la isu imaada wadanka waa la badbaadiyaa laakiin bida Soomaalida ay tiraahdaa ninka doqonka intuu dhumay la soo heray wuxuu yiri maxaa laga soo heray haddana bari baan dhumay marka waxa jiray Kriegler Commission la dhaho nin judge oo South African oo aad caan u ahaa oo ka shaqada qabtay reportkii Kriegler Commission baa jira waxaa jira Waki Commission kulli yaraha asagana oo report u hagaajiyo in justice oo judge sana Kenyana waxaa jirta report yiraahdo TJRC waxa la Truth Justice and Reconciliation Commission waatooyinka dhacay oo dhan in dib loo caynka loo dabaka waxaa jiray mid asagana la Ndungo Commission oo boobkii ka dhacay wadanka siiba xagga beeraha iyo dhulka iyo wax kasta oo dhan oo dhibaatooyinka si toos iyo si dadbanba u saameynayo marka waxaan haynaa annaga ilaa 8 kalena waa jiraan oo markay dhibaato dhacdo mise doorashinta la kala shubto see loo xalliyaa si fuusan dhib kuma dhicin baa la dhaha halkii u yimaada laakiin haddana meeshii baa laga wataa marka kan wax hadda dhib weyn wax isbedel weyn uu keeni doono aniga faarax markaan igama muuqato waxa iga muuqdaa inuu kuwii hore kamid u noqon doono okay haddii aan usoo dul istaagna su-aasha
maxaa keena maxaa sababa in marka waxaa keenay muddo wade waxa weeyaan afrikaankii cadaalad darrada mase waxaa la dhahaa electoral impunity boobka la kala shumanayo wuxuu iska noqday a way of life nooc min nolosha iska noqotay dimuqraasiya la oranaya sifa international community iyo World Bank iyo IMF ki waxaasoo dhan dhaqaalana looga helo kaalmana looga helo ogolaashana looga helo oo in la riligeliyo laakiin wixii dhab ahaan uma noqoto oo waa la iska boobaa wadankan wuxuu aad ugu caan baxay uu soo caan baxay waxyaabaha aankaasoo kale inay markasta ay dhici jirtay ay ka dhici jirtay tallaabaqaadkii ugu horreeyeyna ayaa kaa kibay mar allaana markii xukunka ugu horreeyey oo reer galbeed ka tageen oo ingiriisku ka tagay dad afrikaan oo bedelay yaa meeshii mustacmarka u joogay mustacmarkii ahaa nin cadaan ahaa oo nin madow bedelay hantida wadankii baa la boobay oo maartay dhulkii baa la boobay beerihii baa la boobay wax kastoo dhan waxay gaalada ka tageen cadaan ka tageen xukunkii baa la farmaroojistay xoog lagu haystay mar kastaba adigu ximba way un sii gamaartay maalin ka dambeyso way un sii xaqa la dudsiinhayo oo dhankaa uu sii gamaarhaya uu sii jilfaysanaya maska markuu aad u weynaado oo 100 sano u gaaro suntiisana bay kasii daran tahay very lethal wuuna jilfu yeelanaya anaa kaanaga sidii horta ay ku socotaa haatan midkan wax dan weyn mujtamaca guud oo Kenyaanka loo sameeyo fi mustaqbal markastana yuusan dib dhicin ma aragno ay meesha horta ay tahay what informed wixii ku qasbay inay sameeyaan BBI-da BBI-da waxa loo sameeyay aan yar ku sheegay waa dad siyaasiyiin oo doonayaan inay siyaasadda ayaan horta dhaqankii hore waxay ahayd dastuur baan hadda haysanaa dastuurka waxa uu hirgalay 2010 dastuurkana qodobadiisa waxaa ka mid ah in madaxweynaha loo ogol yahay laba tooka laba door oo min 5 sano inuu soo geli karo haatan wixii baa la bedeli rabaa hadana waxaa laga dhigi rabaa parliamentary system tii hore waxay executive presidential system tan waxa weeyaan parliamentary system prime minister inuu noqdo ninka head of government-ka marka reportka aan kasoo dhamaano dhankaas BBI-da uu horkacay Yusuf Haji reportkii laga dhageystay ay countiyada dalka ay soo wada tageen waxay sheegeen in dhamaan 47 county dalkan ay wada tageen guddigaasi oo ay akhbaarad soo ururiyeen akhbaaradkii ay soo ururiyeen ay la wadaageen bulshada oo ay madaxweynaha horkayneen hadii bal aad mid u dul istaagta ama akhbaaradka horta wax concrete oo bizabt oo sahal la yeela leh ma jirto meeshii waa un wish list waa shopping list weeyaan oo baarlamaanka in maaragtay parliamentary system laga dhigo waxyaabo fara badan in wasiiraha laga soo saaro baarlamaanka barna dibadda laga soo saaro barna gudaha waxa hadda ku qoran reportka waa nothing waa zero marka substantial aad fiiriso wax soo qoom weeyaan waxa maada dad intii laga soo qaaday meesha la keenay wuxuu kaliya uu ku fiican yahay it is the beginning of a conversation wuxuu noo fursad u hagaajinaya oo albaabka u furaya in wada hadal la bilaabo maxaa ka qaldan wadankan maxaa laga bedeli karaa see loo bedeli karaa maxaa dastuurka laga bedeli karaa maxaa u baahan in shacabka dib loogu noqdo in baarlamaanka uu sameeyo waxyaabahaas ay tuwayaan laakiin arrinta halbowlaha oo ku qasabtay in waxaan la hagaajiyo iyo danta laga lahaa waa hal mid keli madaxweynaha waqtigiisa 10 sano uu dhamaanaya 5 sano uu dhamaanaya Uhuru 5 sano u dambeysay baad ku jira 222 waa inay doorasho dhacda oo cusub u soo gala marka dad isku ceersanayo dad moogtay doorashada 5 sano heshiis baa dadka xisbi iyo xilfi baa isbahaysi baa 5 sano u horeysa waa la haystaa oo waa la midaysan yahay maxaa 5 dambe u baahan yihiin laakiin 5 dambe marka la doorto maadaama uu madaxweynaha uu markay 5 dhamaato uu marka la soo sharaxi karin sida Mareykanka ay tahay oo kale waa 4 sano iyaga isbedel baa bilaabanaya dadkii isla socday oo heshiiska yaa inay isqiyaanaan isla qadabayaan bilaabanaya waxa weeyaan anaga mar dambe shacab iyo aqlabiyad aan u baahanahay inaan doorasho ku soo galno ma jirto ilaa ninka ma soo noqonayo
dastuurkii miyaan bedelnaa oo waxaan ka dhignaa prime minister oo markuu doono soo noqon karo madaxweynahan haata uu istaagi karo ma kii hore kii aan midna madaxweynaha midna ku-xigeen buu ahaa kii madaxweyne ku-xigeenka ahaa wuxuu intaa madaxweynaha garab u siinayaa markuu ka tagay meesha asagana in meeshii loo ogolaado inuu noqdo dadkii madaxweynaha ka agdhawaa war kan isku hadleen karnaa mase wax kanaan raadsanaa haddana waad fahamtay soo ma waxyaabahaas unbaa hadda ay waa siyaasadun adiga arrintan la xiriirta marka ma ahe madaxweynaha ma fursad intii la bedelo waxaan oo laga dhigay prime minister system ma loo ogolaan karaa inuu soo noqdo haddana mar kale oo u istaaga xisbigiisa asagoo wato madaxweynaha haddana wadanka u noqdo head of government ninka wadanka xukumayay uu noqdo madaxweynaha uu iska yahay ceremonial waxa weeyaan magacyeel uu iska yahay oo iska bohon waad garanaysa sooma marka aan ugu imaano marka suurtagalnimada iyo waxa ay ka dhigan tahay taxadarkan Kenya oo dal dimuqraadi ah oo doorashooyin badan ka soo dhaceen inkastoo khilaaf xiriiriyay doorashooyinkii dhacay maanta ay u gudubta amaba afti loo qaado suurtagal ma tahay in wadankan uu ra'iisul wasaare yeeshto iyo madaxweyne ceremonial amaba way tahay suurtagal weeyaan dhab ahaan aniga haddaad weydiiso mar kasta waxaan ahaa nin ka soo horjeedo madaxweyne awood badan leh laakiin lala xisaabtami karin kaanaga hadda waa sax waa imperial president awoodoo dhan buu leeyahay nin baarlamaanka intuu soo dhex istaaga su-aalo laga weydiin karo maxaad saan u samaysana maaha waad fahamtay sooma memberinta dowladda kuwa ku jira wasiiraha waa dibaduu ka keensaday xagguu la fariisanaya baarlamaankii waxaa ka jawaabayaa gudoomiyaalka gudiyaalka kala duwan oo dhanka dowladda ka socda ayaa su-aalaha memberinta ka jawaabaya waa ilaah intuu ka jawaabi karaan madax maxaa awood ma laha marka power with responsibility awoodda ninka hayo oo fulinhayo iyo qofka dumarku hayso oo fulinhayso yaa lagala xisaabtami karaa laakiin hadda waxaan qabnaa waxaad kala xisaabtamaysaa nin aanba shaqo ku lahayn oo guddi baarlamaan weyn oo isagana awood aanan shaqo ku lahayn oo sharciga hagaajiyo oo member of parliament marka intaa la bedelo oo intii la hagaajiyo prime minister la hagaajiyo xisbiga ugu dad badan memberin ugu badan uu noqdo ninka gudoomiyaha xisbigaas uu noqdo ra'iisul wasaare madaxweyne maartay iska symbolic oo dhufaanan oo dusha iska jooga asaga maartay ceremonieska iyo safiirnaha qaabilayana uu iska jiro sida hadda boqorada ingiriiska ka tahay mase sida ay wadamo kale badan iyagana ay ka yihiin sida hadda Singapore oo kale iyo maxay ahayd Tanzania ma Tanzania executive president prime minister appointed when Ethiopia oo kale exactly Ethiopia oo kale iyo wadamo kale oo fara badan galbeedka hata wadamo badan baa jira saas oo kale meesha boqortooyo jirtana boqorada ayaa ceremonial iska oo head of state oo ceremonial leh meesha boqortooyo jirana madaxweyne ceremonial iska qaban yahuuda Israel nidaam caynkaas oo kale oo maaragtay ceremonial president laakiin executive prime minister baarlamaanka dhex imaanayo su-aalaha maaragtay laga weydiin karo kana jawaabi karo inay yeelato waa arrin loo baahan yahay in wadankan uu ku howlgalo أنا waxaan aaminsanahay taa inaanan fundamental changes to the power structure yani waxyaabaha halbowle oo awoodda wadanka sidii loogu takarfalanayo loogu howlgalayo lama samayn karo iyadoona shacabka dib loogu noqonin dad baa waxay leeyihiin baarlamaanka uu marin karaa isbedelkaasi to distribution marin karaa laakiin ma aaminsani you have to go back to the people shacabkan waxaan aaminsanahay taa keli un hadday tahay wax la weydiinayo inay in badan ay yeeli doonaan laakiin waxaa jirta laba shayna waa jirta cabsi laga qabo haddii dadka barkood ay madaxweyne ay noqdaan meesha hadda uhuru uu joogo in ay aada ugu takarfalan karaan awooddaasiito sida uhuru aabihii oo Kenyatta Jomo Kenyatta iyo Moi si xun maartay ay awooddaasiito ugu takarfaleen waxa la wixii mucaarado ka soo horjeedo dhan ba ay maartay si fiican ay talaabooyin adag ka qaadeen marka siyaasadda badana adduunka cabsida inta loo samaynayo cabsi
iyo inta loo samaynayo hawe iyo raja inta cabsi loo samaynayo ayaa badan haddii system caynkan uu jiro oo hebel iyo hebel oo naxariistii ka guurtay ay meesha imaadaan ama ay nagu baabi'iyaan marka cabsida inta loo samaynayo qof la doortay noqotaya iyo nidaam la bedelay noqotaya cabsida is ya more fundamental than the aspirations يعني هودي يرجدوا بدأ إلى ذا يا عبسنا صار مركز إن اللي جاش أنت الشر أطوق هاي خير وحول كامل به أو كلويان مركا عبسنا لقى قبنا مثلا وهو ردكتة ماشي كويين كيس لقى قبنا ماشي بيكون جرته ما فهمت السماء أنا مو بدن بس كجيران لكن دستور نظام أهان أنا هو برايم مينستر كواسود وينيا وأنا وين في عنت ولا قصب الشعب كله الله تعالى. أوكي إن أجاد تاني مركي أي شيء نهرو إيو هيلا ودينك دad badan ayaa waxa ay aaminsan yihiin in heyla wadinka uu curyaamiyay geedi socodkii dawladdan iyo horumarkii xukuumadii tan ka horeysay ama maamulkii 5 sano ugu horeysay horumarkii dalka uu gaaray uusan imanka gaarin 3 sano 2 sano oo ay harsan tahay taasina uu sabab u yahay in heyla uusan ka hadlin arrimaha dhaliisha ah ee dawladda mucaarad la'aan dawladda waxay rabtay iyadoo sameeyay waxay rabtana isaga dhaafto marka misleey karna heshiiskaas in kasoo faa'iido ugu jiro shacabka in la heshiiyo horo heyla si xal loo gaaro wadanka wax si loo gaaro hasan heyla waqti xadirka inuu عريا منها arrimaha iyo adeeg وقصبها قصب ويان وحي مركي هوري وحي ويان وحي هذا وحي نقطي امس وضع عنه ما اما وضع عنه اما عرينا مكتي هوريت هذا وضع عنك بقى لو هشي مرات وضع عنه لو هشي او يا وضع عنه هيان عرينت وحوفي عن شعبك مركو يجي معارض حوقلي oo wixii khaladka dawladda ay samaysay fasaad dawladda ay samaysay boobkii dhaca dawladda ay samaysay markiiba soo saari oo dawladdii qilqil gelinaya shacabka u fiican tahay hada dhaqaale shacabku dib ugu noqonaya hada laakiin waa la heshiiyay mucaarad wadanka kama jiro mucaarad maadaama la heshiiyay mucaarad uusan jirin fasaadkii waa boobka maalin haddaadan akhrin jiraadka ka akhrin intaasoo bilyan oo shilin Kenya oo la dhacay maalin labada ay akhrinaysaa waxaan ku daliilay hatta haddaan akhrin wadanka waa brook wadanka waxa weeyaan uu qaariqay way fahamtay sama la qarqiyay ma jirto lacag ma jirto wixii waa la boobay mashaariic lagu boobay la geystay oo SGR waxaan ka soo kale deema fara badan waa laga soo qaatay meel kasta maanta deenta Kenya waxay kor u dhaaftay $7 trillion oo shilinka Kenya wa $70 billion يعني أنا قاعد عندي ميسرنا لا اسمنا جاري إلا صياش ما قلنا هو أنا حويان بوب يا مش جرا ومعارض كان كام شيء وهذا الله قاعدنا يديمه هذا الله قاعد وحكلمه وحويان وحصل صار كي ودنك ما جودي كرديمه oo wixii loogu talagalay in bil kasta sanad kasta 3 bilood la bixiyo ma hayno revenue uu yaraaday dhaqaale wadanka hoos buu dhacay wax soo saarkii baa yaraaday deyntina waa la rabaa markii mishaarka la bixiyo oo maxay shaqaalaha ciidanka booliska wax kasta la bixiyo waxa soo harayo wixii canshuur ahaan shacabka looga aruuriyay kuma filna deemaha inay service garayso waxa weeyaan ribada deemaha ay bixiso korsaarka deemaha inay bixiso kuma filno marka waa inaan deen karaan soo qaadano marka deen qaado mar bay deenta isku wada imaanay hebel baad ka qaadatay bari ka maalin hebel uu ku diidi doonaa marka jug bay dhihi jugti wax nooga haray wiyariyaad isla su'aal xiriirsan bal hadii aad wax nooga sheegto ama aad shacabka u badhaamiso wada shaqeynta ka dhaxeeya ra'iisul madaxweyne ku xigeenka dalkan iyo madaxweynaha halkee ay gaarsiisantaa horta inta waxa weeyaan sida Soomaalida oo kale ma aha farfiiq iyo maartay aankaas oo kale iscaayn iyo dagaal ima jiray iyaga oo aan wax wanaag jirin dhaxdooda iyo haddana markii banaanka la imaado wada shaqeyn ay muujinayaan wadankii bay fiirinayaan patriotismkii baa ku badan marka wadannimadi baa buuxda marka ma inta badana ma tusaan ma muujiyaan wada shaqeyn la'aantooda banaanka ma muujiyaan laakiin cabsi badan baa jirta cabsi aad u fara badan baa jirta in madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa ay kala tashadeen oo madaxweynaha uu
ku talagalay oo mise ku go'aansaday inuu ka takhaluso wadi fahmtay soo wixii maadaama ay tahay munaafasa siyaasi ay tahay tartan siyaasad ay tahay mid kastana wuu is ilaalinaya hadallada ka soo baxaysay wax kastoo dhanba inuusan lafagaarkan kale ku samayn hadduu shacabkii meeshay u badan yihiin ay nacaan ka-xigeenkan oo laylehay ay noqoto shacabkii inay la safanayaan nin kastoo ka imaada mase badiil kastoo la keeno xumaatida iyaga u dhexaysay way madaxweynaha waxaa la kasuurayo inay marta u helo hadday noqon weydo oo ninka intuu galaangasho hadda u sameynhayo meel kasta uu tago wadanka uu ku wareega meel kasta oo wareegii wadanka ku wareegaya shacabka ay dhahaan adaan ku rabnaa ay dhahaan oo u arka kaadacsidaada lagama sid badanayo yacni colaadaadana waad muujisay madaxweyne haddaad tahay ninkana shacabka laba goreebay soo dooran doonaa badanaa wuxuu iska jeclaanaya madaxweynahaasayto inuu haddana uu wanaag u ka samaysto sooma marka wax siyaasadda waxaa waaye inta taaba fiiri miinaan kula qarxaysa maya haday kula qarxayn si fiican ugu taagso inta taaba haddana hadday kula qarxayn ku socod taagso tallaabo saa usoo qaad adiga oo meel kasta ka fiirinayso yaa laba dhinac bay ceerayaan hadda marka haddii mucaaradkii ra-iisul wasaarihii hore Raila Odinga iyo madaxweynihii ay heshiiyeen madaxweynihii ay kala boodeen ku-xigeenkiisii marka bal saddexdaas nin wadankan marka halkay geen karaan kulta halka ku socda wadanka والله حد waxa wadanka ka fikiray ma jiro wadanka kan ku sheegay wadanka shaqo la'aanta way fara badan tahay dhaqaale hoos buu dhacay capital flight baa dhacday dhaqaale badan baa laga saaray dibadaha loo saaray wixii been baa ku jirta oo dhaqaalaha lagu korhaya ya meel kasta lagu qoraya waa been marbay isku soo beenti ma soconayso baada fitra mudeer kadib beenti aad ma soconayso marka anaga waan maanta xalka ugu liidataan joognaa wadan meeshan anaga marayno dhaqaale ahaan iyo nolol ahaan aan marayno wadan marahay geeska Afrika ma jiro waxaana South Sudan ka okay waxaad dhawaan waxaa la xiray gudoomiyaha ama gabanaha Nairobi Mike Sonko eedeynay in lacaga la luusha ama musuqmaasuqa oo bal la dagaalanka musuqmaasuqa ee xukuumadda haatan jirta heerkii ay gaarsiinayaan markasta anaga anti corruption commission haatan ay shan sano horteed bay jiri jirtay xasuusta la diraa weligeed cijid afartan iyo kow sano horteed madaxweynahan Moi markii uu anoo arday jaamacadii anoo dhigay maxay ahayd arday iyo waxyaabo ku soo caanbaxay waxa kamid ah ma la diraa musuqmaasuq hakuna magendo kii koreey oo Kenyatta oo madaxweyne ugu horeeyay wadanka xorriyadda markay qaatay على رد الفساد كورن شري مركا أدقو حواي أنت بدنا وحول الله فسر مركز توا قوي مقلسي وعمانها كقوان لكن هو وضع حوا شيء فضل أو شعب كله كسب كره أو مسخاط ما ندير راية مسخاط ما ندير راية لكن ترى بخاطر مع الجبنة على حري والجبنة يا محل الله حري ما مصر عصر بالله حري مصر الله حري سياسة كل ميد أفراد بدن وجبنا يلبا يشتري أصله حدي وحكم بدن حديقة معك والله سوق من لي ويفهم تسمع أوكي أصله وحويان وانين رنتي سوق كل نقطة بجبنا يهدى فجأة نوطي أو اليابية وسوق جامعة أنتوا كوكل ودقري وكقات اليابية معاد وحوها نن جالك كجري قال شرح oo shimalato lagu soo xiray oo manyaani lagu xiray oo meel badan lagu xiray oo committee lagu xiray oo meel kastaba waxyaabaha muqaadaraadkii waxa lagu xaman jiray bari hore sidoo ma ku noqday governor Nairobi aniga waan yaabanay ilaa hadda ilaa yawman hada runtii markii loo kaco maadaama uu ahaa nin markiisii horeba faraadii kula jiray markii siyaasad ahaan ay iska hor imaadeen qolihii awoodda haystay way u fududaatay markaa inay جالبو كعر هذا كور نكن هذا جبرك وانين وفجتي في حال ده نين كعربي شرعي كعربي مركا نين فاجتي في السوق حتى جبر النقدي والسؤال أدوين بدأ هذا فريس وكي على الملكست أنا وين certificate of good conduct أض هاي مركا ما له استغربت certificate of good conduct السوق وين هاتوا ولا ياب لكن قصب مركا دولة تذكر مدحضة شيز بأهين يوم ما لقبتين أردن نكا سالسي داي هنو يستاهل كرسيها حد لكن وحد مدائري سكوري ما ضرعي
iskahorimaad kareeto markuu dhacay dowladda way soo saartay waxay tirahdeen musuqmaasuqaan la dagaalamayna ninkaad doonto noqo jagada doonto haysa adduunka saaxiib kasta la noqo madaxweyne haddaan ahay ilaa asaga madaxweynaha waa aad bay saaxiib u ahayn laakiin anigu tilaabadeeda waan qaadi ma asaga ku ekaan doonta mise kuwa kaloo fara badan oo hadda weli asaga saaxiib leh iyo iyagana baaritaan lagu samayn doonaa oo dadka lasoo qaban doonaa waa su-aal meesha ku jirto laakiin anigu waxaan u aaminsanahay inkastoo asaga aanan wax naxariis u haynin oo nin marka hore ku habboona anay meesha u tago inuu governor kuma habbooneen haddana in lasoo qabto la daba kaca oo dembiyaalka uu galay la ogaado waa arrin meesha ku jirta weyn waa tallaabo haba yaraatee tallaabo fiican weyn waxaan aadaynaa dhankaas iyo gobolka waqooyi bari oo aanu ognahay xaaladeeda halkii ay marayso doorashooyin badanaa dhacay waxyaaba badan isbedelay hoggaan badan oo aad adigu qeyb ka ahayd ayaa ka jira gobolka waqooyi bari dad badan ayaa waxaa aaminsan yihiin in mas-uuliyiinta laga soo doorto gobolka waqooyi bari aanay waajibaadkooda garanaynin haddii ay garanayaan ay sidii la raba ay u gudanaynin tusaale haddii aan kusoo qaatay Monica ayuu ku egyahay bridgeka amaba waddo wanaagsan oo dalkan ka tagtay oo gobolkaas u dhaafto haddii aad ka dhadhaabad madowgaasha haddii aad ka kala dhaban aan aadna wuxuu ku egyahay Monica dad badan roob xilliyeed ay daan mushkilada badan ay nagala kulmaan gawaari ay ku gudooto bal mas'uuliyiinta gobolka waqooyi bari waa maxay howlaha ay u hayaan shacabka gobolka waqooyi bari horta laba mid waanu kala saaraynaa وصادوا الشيكتي هرت وحويان مسؤولين تا ماشي أبدين وقوي بري حدا هوشة كوضه ماشي أبدين لما صدرن شعب ما صدرن ماشي أبدين شبه شيء يكوي بعدين قبل يقولوا سد هذا جبنا ويشبتين ما هي إن بدن بقى شو تصير بدن هبل أنا كورن horta gaars doorasho kama dhicin waad gartay Soomaa waa la wada shubtay wajeerna si islamida mandheerna si islamida dad la soo doortayna way jiraan oo iyaga dadaal shakhsi ahaan ahayaan oo maartay dadka kullu isku mid maaha مثلا haatan waqooyi bari cid kali oo ku oran kara member of parliament weeyaan oo uu dagaal ku jira dadkiisana uu dagaalamaya aad baan u shaqeynaya waa dad yar oo kooban oo kamid yahay mudanaha aadankeena oo kale laakiin dadkii dad la soo doortay oo si dhab loo soo doortay oo maxay ahayd iyagana meeshii may ku cusuban yihiin ma sida ilaahay iyaga u dhigay weeyaan aan howl adag hayninna way badan yihiin waqooyi bari falaxdii dadaalkii dhaqan u ahayd dadka la soo doortay inay dad kacsan yihiin oo maanta dhan mashaariicda raadinayaan oo isu imaanayaan oo dawladda ay qoobka u saarayaan hadda ma jirto safartan hadda ma jirto asbaab badan baana samayso haddana soo koobi karin waxaa ka mid ah dhaqaalaha qayb ka mid ah waxaa dadkii baa lagu celiyey marka tiibaa sidii loo kala boobi lahaa lasku ceersanaya centerka wax si fiican oo la xisaabtamayo oo Nairobi dawladii dhaxay wax si fiican oo la xisaabtamayo ma jiro wadadaas hadda ilaa Mdoogaasha gaartay saddex jeer baan ani sababteeda u tagay bangiga Arab Bank for the Development of Africa African Development oo Khartoum kule maxay dar koontarkooda yaa u tagay qadab tagay madaxweynahan oo wasiirka maaliyadda yaan ani asaga daba soconay oo ilaa aan sameynay heshiisyadii ugu muhiimsanaa aan ku sameynay treasury-ga markii uu saxiixay waan la taagnaa la fadhiyay aniga oo waan dadka aad uga shaqeynay baan kamid ahaa doorkii ma maqan yahay anoon tafaasiil badan sii gelin haa way ka maqan tahay waxaa la gudboon shacabka Soomaalida ah oo waqooyi bari in badan horta dadka ay soo doorteen meesha ma joogaan oo dad aan la soo dooranin baa loo shubay oo halkii fadhiyaan wax weyn lagama sugayo taasoo kale xisbiga marka xaakimka ayaa u shubay ayaa maartay u boobay xisbigaas ay tahay madaxdiisu bay lawyer u yihiin oo daba socdaan oo ay amaanayaan oo Uhuru iyo Ruto iyo wax la mid ka bay amaantoodana wadaan oo aad u daba socdaan
in badan dowladda iyada oo centerka markii hadda lacag baa jirtay markii wadadaasayto lasoo dhameeyey Kenyan component baa jirtay waa in 15% aan u malaynayo inta kalena deen carabta laga soo qaatay oo maartay ku jirta Kuwait faan ma gartaa halkii malaadka dhowr wadan baa ku jirtay halihii yaraa oo Kenya ay bixin lahayd yaa sanado badan horteed barnaamijkan aan ku jiray wixii ka horreeyay yaa quri kari weysay santa baalka treasury oo niman qabiil ku xisaabtamay oo markaa joogay maaliyadda joogay ay ka maarmayeen goboladooda geysteen 85% dibadda ka imaan lahayd 15 dowladda Kenya ay contribution keeda ahayd yaa la qori waay laakiin markii dambe oo aniga ku jiray meeshii oo barnamijkii tomnaad oo 2008 ilaa 2013 ah waa qofkan oo ku sarnay waxaan ka soo fujisanay wayna socotaa hadda waxaa haray guud ahaan wada shaqeyn fiicanna ma jirto centerkana aad loolama xisaabtamahayo halihii yaraa oo gobolada la geeyna boobkii baan caadi ahayn oo laga boobayay marka inkastoo runtii goboleyntii aan aniga aad u support garay haddana aan aaminsanahay waxyaabaha yar oo laga gaaray aan marnaba la gaareen haddii goboleyn aanay jirin haddana fari kama qodno in gobolada qaar dalkan lagu aado train SGR lagu aado qaarna laami lagu aado idinkuna sidaas u burbursanaataan marka maxay ka dhigan tahay arrintaas treenka horta dadka iyo gobolka waxa loo soo qoondeeyay ma aha waa train waxa weeyaan waa culays badan oo la rabo in meel inta laga qaado meel kale la geeyo anaga hadda wax culus oo aad u fara badan oo dhulka anaga ka soo bax oo intii lagaga soo qaaday train meel kale loo soo geynayo ma jirto trainka waxa weeyaan baddu ka soo qaadatay konteenarada Uganda Rwanda Burundi iyo wadamahaas oo dhan Eastern Congo South Sudan buu soo qaadaa oo gaarsiiya wadamaha meelaha xuduudada wadana diyaarada gawaari kale ka sii qaadaan marka horta waa inuu jiraa production mise agricultural production mise imports iyo exports oo meesha marayso yaa lagu sameeyaa hadda train dhigi North Eastern waxa ilaahay intii oo faa'iido u keenaya ma laha waad gartay Soomaa laakiin waqti baa jira loo baahanayo in wadanka dhan la gaarsiiyo markuu wadanka dhaqaalihiisu aad u weynaado oo aad u kabco ya marka social responsibility not an economic remark not economic consideration iqtisaadi ahaan aan loo fiirin laakiin social responsibility ee noqonaysa in la gaarsiiyo loo ogyahay inay faa'iido maaragtay u dhigmato aanan ka imaanin laakiin saad sheegay waa runta wadooyin baan ba jirin wadooyin laami oo wadooyin laami baan jirin oo biyihii baana la centralize garayn horta meel kastoo dhan ceel baa ka qodan oo lama waayo miyiga haati laakiin ceelasha meel ay ka qodi hata tuuleeg waxaa loo baahan yahay in intii loo hagaajiya reticulation system taangiya la hagaajiya wax kastoo dhan oo shacabkii ay musqushooda biyaha iyo qololkooda iyo gurigooda isla hadda Nairobi aan u haysano wadanka intiisa kalena loo haysto magaalooyinka waaweyn way qabaan Gaarsi iyo Wajeer Mandheera way qabaan laakiin hata magaalooyin yar baa qabaan oo dhowr laakiin in wadanka gobolka dhan la gaarsiiyo waa arrin meesha ku jirto muhiimadda aan ku socdo horta la isma xaqiro anigu markaan baarlamaanka soo galay 1992 ardayda gobolka waqooyi bari ka imaato oo dhan oo jaamacadaha Kenya akhrisanayaan 65 bay ahayd 65 oo waliba badana ay waqooyi bari ka imaanin laakiin Soomaali weeyaan dadka ku dhashay Nairobi iyo Nakuru iyo Eldoret aabuyawad mas askari ahaa mas barnaamijtari u ahaa mas ku noolaayeen mas shaqaale dawladda oo nooc kale u ahaa mas shirkado u shaqeynayeen yaa u banaayeen oo 189 ahayn sanadkii laba cunug baa markay u bataan laga soo qaadi jiray waqooyi baro jaamacadaha Kenya la keeni jiray maanta laakiin waxa lagu qiyaasaa 60 kun iyo wixii ka sareeya inay yihiin ardayda dhigtaan jaamacadaha isla 93 yan motion gain baarlamaanka aniga aan geebrigi affirmative action through quota system motion ki aan geynay ya maxay ahayd na u garab qabtay waxaan la yaab leh motion ka markaan beriga geey mucaarad baan aniga Kenyaanki kale markaan sheegay gobolka suu tacliin la'aan u yahay dhibka ka jiro ilin baa ku soo wada istaagtay kulligood madaxa la qabsaday Soomaalidii aniga igala imaatay waqooyi bari inay ugu hor imaadaan bay isku dayeen ay leeyihiin
hadduu mooshinka ninkan mucaaradka uu keenay uu u maro magac buu ku yeelanayaa gobolka waqooyi bari doorashada soo socota mucaarad baa la dooran doonaa halkiis maandhiis taa maxay ku muujinaysaa horumar aan la gaarin cadkaanagii oonan helin wax kasta mar kasta dhibna loo geysto xasuuqna hataa ha noqoto xasuuqi wagaala xasuuqi maxay ahayd ka dhacay malkaamari xasuuqi gaaris ka dhacay qaybta ugu weyn soomaali kale baa ka shaqaysay dadka aan la deganahay wadanka aan la deganahay dad ka niyad fiican adduunka ma jiro aniga qabsa midaayada hungurina wuu ku maartay uu kula qabsanaya laakiin xumaan intuu ka fikiro ka shaqeeyo aanka kulama maagayo xumaanta marka naloo geliyo oo ay ka mid tahay screeningka beriga la sameynay oo aan isleeyahay waxyaabahaas ayaa waxyaabihii xataa soomaaliya burburiyey ahayd mar kasta dad soomaali oo madax ah oo inta ka shaqeeya iyo dad lamid ah mise barnaamijyada ayaa fidnada ka shaqeeya oo geliya kenyaanka kale markan motionka marinayay dad ka mid ee soomaalidii meesha baarlamaanka ku jira inay ka hor imaadaan bay rabeen dadkii ila joogay waxaan xasuustaa biwot oo ahaa total man la oran jiray wasiirka ugu xoog badan ahaa meesha marka oo kaanu ahaa yaa nin yaroo wiil yaroo aan magaciisa sheegaynin oo ag fadhiyay baa iyo dhowr jeer buu hadalka iga soo dhexgalay point of order wuxuu yiri intuu qabtay buu dhulka dhigay mar dambe ninkaa ka dhexgelin hadalkii buu dhageystay madaxuu gelgelay naxdin awgeed ku kaloo diray sunkuli buu diray u sheeg buu yiri baan kulliga ku wareeg waan support garaynaa motionka farax uu keenay oo intimaama oo hadda dhintay oo masay aha yaa yiri anaa second garayni intuu imaado soo wareegsaday igu yiri waxaan rabaa inaan second garay motionkaada second garay baan ku yiri ماشي بو كقاضي او يري امدن waa حقري انجليزكي waa حقري مستعمركي waa حقري دولدي هره حقرتي تن way حقرتي لازم ان لا مريا affirmative action through quota system كي موشن كي سنه غدي يعني بشان بقول iyo konton arday aan gelinay jaamacadaha annaga marka wax aan intaan oo tagta maanta Kenyaankan kale oo nolol madaxweyne nin kale ahaya lagu midaysan yahay oo lagu waan ma jirto horana lagu ma waynin maanta lagu ma waynin bari lagu ma waynin دبك أنتو كي ماذا؟ والصومالي وحاسس إنه يقدر حوضه وبغمجوين هذا كور بقى وحلو سمي سكرينينج حلو سمي فهالي الصومالي وفر بدن بقى أنت جوكته أو هي أن شرعي قاعتين جدا حلالهم يا كشقين لمن مدح الصومالي وكشقين تولد بقى لقد أدي تولد وحساس صارت إنك استو الصومالي دب لو سميه باريتان dad fara badan oo bacmishtari ah oo inta joogay oo maartay wadanka deganaa ayaa la qaaday dhab baa la siiyay guryahooda laga soo qabtay wax kastoo nab gawaari baa dawada laga geliyay xuduudka la gudbiyay waxay ka Soomaaliya oo ka warag bacmishtari ah oo rag weyn ah carruurtooda inta ku dhaleen oo la arkaa inuu konton sano wadanka deganaa ya asagoo beel ahaan loo raadinayay loonay reebel buu yahay qoyskan hoos ka yahay inta asal ma lahayn markii hore oo asalka laga raadinayo wax kooban حصل كذا هذين هين وحكومة يلا دري حاجة مركي تجان تذكر هذي بكون حدين هذي فرد الصبر أنا جو حنا الصبر كعي ده دارات لأن ما كانوا قاعدين بيوبرناي وقاعدين ما نسود كعي دارات واحد نسمي أراد الصومالي أكد عادي بربك الصومالي أكد عادي أنا قيرت عن كل الناي إنت إله أنت أكل كل قيرتها بتشرت دتي أنت كتجي وبحاول غير وكمدها فكرت لك وبعمشتريها ودقنا وسنوات قبل إنه الأوريجري إلهي قلنا حريص تضوء أنت وترانسبورترها فربنا يلا دري وانت القاضي لو هذه حق هر الشخصية دي هذا وحسكو خمسة ما هالك الشخصية اللي حسيت أنت حد أمد إيد الآن ما ارتأت ساعة وسميني مركا النجا حسوقي كدعي وقال أود بنا يسنا النجا أود بنا يسنا يستمجن سديتني اللي بدي مركا انقلاب كل اسكت دي ونك جنانكها وصوماليها وماشي فشري وهي كدن بي أنا ودنك ديار بنوعها ودنك كالي قاطعت ومدد إثيوبيا يا هيست إثيوبيا هي وحيلين الصومال كلين من كرمضها وكان ودنك قبصها بدل كل قبص لها صومالي دي جاست بس عضاء تن إثيوبيا انكفى الله دوراي
hebel iga fiiji meeshan hebel caynkan oo kale anaa noqon rabaa kilarka anaa kan samayn rabaa xisbigan baan hagaajistay oo reebel waxaasoo kale ayaa meesha lagu yaacaya tii iyada ahayd waxaa dhacday 1980 in Gaaris ka dhacay xasuuq habeenka xasuuqa dhacayay niman mucaarad oo Soomaaliya ka carareen oo ku carareen Ethiopia oo ka soo horjeedeen xukunka Ethiopia 77 wixii ka dambeeyay dagaalkii 78 ka dhacday ka dambeeyay oo Ethiopiaanka ku adeegan hayeen dad ka socdo iyo safiirka Ethiopia Mengistu Desta نجي كريك الأورني أو وزيرك كينيا internal security وشغلها وجيرو ذي مرة حاسي إن هاي أنت كشقي إنجارس لوسم يحسوق it was always a Somali component Somali ده أنكو سوي رئيسي كارس بحسوق بعد صدق بقول وقف بهبين كل الله nin la xumeeyay oo Cabdi Madoobe la oran jiray oo yaa dadka xumeeyay iyo raadsaday meel baar buu ugu tagay shan qof buu ka diray badalka asaga la raadsan lahaa magaaladii baa yaa la xasuuqay Ethiopiaankana way ku jireen oo colaadii 77 ka dhacday oo ay lagu burburiyay iyagoo intii laga soo duulay xamar lagu burburiyay oo markii dambana Ruush iyo Kuubaan aynka ay noqotay ayaa la rabay in tul lamid inta laga sameeyo sifa mutual defense pact ee Kenya Ethiopia u dhaxaysay la hirgeliyo Kenya reer galbeed bay gacanta ku haysay Ingiriiska Mareykanka xasan gacanta lagu hayay marka Soomaaliya baa marka in si fiican loo taqaluso colaadii baa la sameeyay madaxweynihii markaa joogay Maxamed Saad Barre ilaahu naxariistay wuxuu yiri ما في رسان كرنو Somali la xasuuqay Somali wax soo qalka ciidankii yaa la keenay xuduudka nin hadda inuu dhintii inuu nool yahay garan u maleyn ma inuu nool yahay maxaa markaas wadaha oo labeen la oran jiray oo aan u maleyn inuu gaashaan la aha yaa dobli xuluq joogi jiray gaari buu soo qaatay ciidan Soomaali hadda bariya Soomaali waxa u dhisnaysay ilaahay shay karo ilaa waxay maadeen magaalada Gaaris oo diyaar u ahaa inuu dagaal galo oo dadka u badbaadiyo afar sano kadib markii lagu sameeyay xasuuq magaalada la yiraahdo ila barigaasaytu inqilaabkiina isku ma dhicin annagana waan wada mid kulli isku mid baan ahay Soomaalida afar sano kadib markii 84 ay dhibaato ka dhacday u dhaxaysa Ajuuraan iyo dawladii ka dhaxaysa ay wajeer ka dhacday wasiirka arrimaha gudahana uu isna Soomaaliya talaabaqaadkii la qaaday waa kii 2500 oo qabiil qoyska dawladii lagu lahay dawladda ku lahaysay قرت سما دولة الصومالية بحيث هذا أرنتها سيتو وإنترنال أفيرز كينيا ما فرق لنا صدق بقول لو قدري ماشي اللي هذا كارثنا وحال يروا طلاب على هذا لما كنا إيش بقول ماشي عن كانوا كل واحد يقع حلوس من هالقوس هنا ودودي هنا حال يري نير بانا أنا مركايده مركايده على السود من دبد وصعد annagoo saddex yaan garan yaan Nairobi dhax soconay in hadda inta Ilaahay u naxariistay oo Axmed Khaliif la oran jiray aad saaxiib u heen ya Cabdiqaadir Tuuli oo baarlamaanka ku jiray anaga meelaas ku imaanay erku maan lagu soo dibay maalinka ay nooga xumeed ma jirin maxaa Soomaali baa laanaya dawladda Soomaaliya oo annaga aan dhabarka aan moodi jirnay markii dhibaato jirtana mowqifkaas qaatay maxaa loo fasirayaa كوجارس لقول لي إنه ودارات فقرت هالكي هم يصير برا ودارات ما فهمت كون دارات معه دير ما ذا ضد ما ذا ودارات نبي كجرا دولة كينيا خرت النجا لبكنا هيستوي حويان قبيلين تان أو قبيلين هنا قد ينها جيران تيبي سوماليا كبر برتي أرتاح كوش يقرنتي مرنا بحي كبر برتي إيوه رمان حريان سومالي كينيا سومالي إثيوبيا مركل بحي كبر برتي النجا أو أي فينا أنت عن كسماني إثيوبيا فينا عن كسماني إيجا كبر برك ولينا بربر كمان ونا مركل وحن كوسا وضع هذا كان كوك يعني كينيا ما أنت نين كينيان عن هن وحمان كل ما جاي ما شرت مر الله على مركز أرت حمان ولا ما جايو وبوبوليشن كان هوس لودي جايو وحياة ولا سميني قسم لمن صومالي كفر كريان بس كل سنة تم هيان أنا برنا يريان برنا بتصدان أم باكوجر في النضاء يدي
waa fahamtay Soomaa oo si xun u isticmaal u takarfanayaan fursadii ay ku haysteen oo madaxtina markaa yeeday waxa ugu dambeyn dhanka Kenya hadii aan ka baxno xuduudan mushkilad ayaa mar kasta ka dhacda oo la xiriirta dhanka amniga Wajeer iyo Mandera dowladda Kenya maxaa la gudboon si ay u difaacdo shacabka iyo dhibaatooyinkan mar kasta ka dhashay xuduudaasi oo argixisada ay ku soo qaadeen kuwa Soomaalida ka dagaalama horta dowladda Kenya dadka la taliyo ku saabsan Soomaalida dhankeeda military ahayana internal security ahayana oo maxaa nabadgelyada ahayana other security maxay tahay sida police iyo JSU ahayana mar kasta horta qolo Soomaali baa ku jirta wax alla wixii ka qaada meesha laazim Soomaali baa kula talinaysa nimanka waa maxshood badan wax aanan u haysanin garab dhan kale kulma soo aadayaan laakiin marka naca Soomaalida xumaatada Soomaalida adiga saad ugu wada ka badiso marmar oo qaadan way qaadanayaan annaga uma baahnin ciidan iyo taangi wax aan ka soo kale nimankan waa niman lug ku socdaan wareegayaan lug baa lagu daba kici karaa ciidan yar oo kooban oo Soomaali iyo xoolo dhaqatada la isku hagaajiyo oo rapid response abuurtooda loo hagaajiyo dhaqaalada loo hagaajiyo way tirtiri karaan argixisoo dhan kulli way ka tirtiri karaan ninkii la Soomaali intii maado way ka tirtiri karaan لكن حدود كيبا يا حادثة كده عسيتي ما اللي تدعو كله نمن إمادين أو صومالي دي يا مسلم كي يا كريستيان كي يا صومالي دي يا كينيان كي أسكت دري ربو يا كدم بي أيضا كيبا أوبريشن قاضي أنا إرهاديان شعب كيبا للجراعي شعب كيبا لله شعب كيبا للحسوق لما تلو سمي شعب كبريب وكوسو شيء مركو أركار شباب وكوسو شيء كوسو شيء يا كان يجاب كاسيتو أنا أنا نصيف حنا ورثنا طلبنا ولا قات أنا ما مليسن إذا كان كاسو كله جاتشيو الشباب لقطة الأولى هتسدوا عدي لبك أنت لبك هذا لغدا بتجو لجراعه لقعد كذا كسر تكات يا ريت كينيا ما أنت تجين بيحب بالبريان ما نكسته هرمود هاي تاورز كذي communication towers هرمود بالله بالبريان تذكر بقى جدا لبلوجيستا قبل الله كوف صداع Soomaalida waa dadka garanaysi marka gabar aan ku fsato walaalkii wuxuu ku biiri argixisada ku biiri gabar walaasheed inuu argasto raba marka horta waxyaabaha aan sameeynayno dad baa ul intii loo qaatay si loo garaacayo aad maleyn karin si loo sameeynayo ninka Soomaaliga darbaxadii garaacad geeriba u dhanta wada gartay Soomaa dhaqan buu iska leeyahay ma yeelayo qoribu qaadanada walaashin that's not rocket science بدأ أيضا مدي يعني أقول دار وبعد ما نكسر لا دبوا وصومالي ولا دليو ولا دلو ولا بهدلو وهالقصة على الأقل أنتوا وكنت المال مركا هرتا واسع هذا كور حسوستا ونن إيش شيء سرقالي ويل الجيل اللي تشران وقالوا اسكا وضوطان فكين يقول هذا يعني ما أسكروا جاري كهاللابي يعني ماليه بلوكو مرمرين وليش بوتجانا وحيدا قرب شارك كسيب قولي شو جيرو كل الغالي سنجرين يو أنت كوارك كوي قراعين وليش قبتين هذا قراعين ويسيد أنا درا تبغى أردنا كل مالها جوجو دور جوجها توبتها واسك قاعد بطريقها يويرتين أسكرت ماشي كلها فاهم زوا كان ينودر نبى إيرك أنت صار هرات بين سنين يكون الله يدري وقدري وطبيعي ونورمال أنا أتقول لي إنك كوسادو إنه أنت ما جعلان لا ما يقدر يلقي مسك ولا شيء مسك جبر كستبو marka waxa loo baahan yahay in loola taliyo dawladda si dhab ah loo sheego la yiraahdo tan ma soconayso tan socon intaan mar laakiin marka adiga aad tiraahdo ku kala xaga ka soo maraya oo dabaqoodi oo maartay doonay inuu si kale iskaga gado ma fahamtay oo waxa ka duwan muujinayo marka horta dhaqankii Soomaalida iyo midnimadii Soomaalida markii la waayay iyo siyaasiyiintii oo si maskaxaysan oo intellectual ee u mideen hayaan aragtidooda iyo abaarkooda Soomaalida intay ku ladnaan Soomaaliya baa degaysa waxaad dhanka hadii aad mahadsantahay mudane waxaan soo gaarnay qaybihii dhixan oo xitaa qaybihii dambe ee barnaamijka xagugal ee aad martida inooga isbuuci
aan kasoo gudubnay dowladda federaalka ee Soomaaliya golaha shacabka ayaa waxaa loo gudbiyay oo ay dhigaysteen soo jeedinta in doorasho qof iyo cod ah ay dalka Soomaaliya ka dhacdo arrintaas ayaa la horgeeyay baarlamaanka bal suurtagalintee ayay la egtahay in Soomaaliya 2020 ay doorasho qof iyo cod ah ka dhacdo runtii kuma oran karo 2 sano gudaheed in lagu gaari karo waa suurtagal in 2 sano gudaheed goboladan maxay horta waxoogaa ammaanka aad loo soo oo sanadka cusub wixii ka bilaabata meelo badan laga soo afjaro ilaa cududi way hayaan al-shabaab oo dhan baad la isku qiyaasay 3,000 kama badan way tirtiri karaan waqtiga ugu fudud shacabkaas hadii la kiciyana shacabkaaba ma artay sidii macawisley nimanka la oranayay marka dambe iska iyagana ka qayb qaadan karo 2 sano ay bar waxay la tahay in lagu gaari karo midda iyada hal sano ma lagu gaari karaa meel ma hal sano lagu gaari karo in 2 sano intii in yar ma artay lagu daro la gaarsiiyo faa'iidada ku jirto may markii loo barbar dhigo waqti soo dhamaaday oo in yar la kordhinayo ma tahay aniga haaba ku leeyahay maxaa doorashada aan one man one vote ka ahayn oo ergada la samaynayo waanu soo aragnay waxaa lagu yiri waqtigii doorashada u dambeysay madaxweynaha Soomaaliya 3 saacadood gudaheed iyo hal nin wuxuu ku isticmaalay 13 milyan dollar 13 milyan dollars ya ma 2 saacadood ma lagu yiri ya ku isticmaalay sidii hore hadii lagu wado oo guddigii dadka la soo dooranayay dadka aan ka noqoto meesha doorasho kama jirto shacabkii rabitaanka shacabka lama gaaray elite ma contestation u sameynaysa dhaqaalaha ya imaaraad ka soo qaadan kara lacag fara badan ya wadan kale ka soo qaadan kara lacag fara badan ma gartalkii Kenya ma artay oo dhihi kara wax fiican iyo wanaag ka duwan kuwa kale ayaa haya adiga waxa soo dhan oo fara badan oo suuqa la geynaya masiirkii iyo mustaqbalka Soomaaliyeed ahata shidaalkeeda ahata waxyaabaheeda muqaddaska ma gartalkii oo fara badan way dhici doontaa Soomaalidana waxa soo cadaatay wadanimada aad bay ugu yartay dadka madax isku sheegay wadanimada aad bay ugu yartay waxay manka xukunka gaaro shabashi buuxsada waxyaabo caankaas oo kale wadanka dhan ku gaday waxay tahay in shacabka sida hadda Ethiopia aan ka hadlayna on leeyahay Ethiopia doorasho kama dhici karto ilaa ma tira koob rasmi la sameeyo kuraasti dib loo qaybiyo ilaa bariga hore Tigray waxaan iska qoranaysi Tigray 3 milyan 500 kun baa Soomaali aan ku qiyaasay ilaa 15 milyan yihiin iyo waxay ka sareeyeen barnaamijka dhexe oo koona 23 ay ahayn koona ay ahayn 38 haatan waxaan aaminsanahay aniga inta ay oramada gaarto nuskeed ku dhaw helayaan Soomaalida iyo hadii على الأقل 3 كمال مال قوميدا labaad ay noqonayaan baan aaminsanahay marka dimuqraasiya rasmi cadaalad lama gaari karo ilaa dadkii tirakoobkina la helo tirakoobka markii la helo marka nin kasta cadkiisi xukuraasta cusub oo maartay federaalka lagu nidaamiyo iyadoo tirakoobka lagu xisaabtamayo marka ka dambe doorasho la galo laakiin Soomaaliya maadaama hadda Ethiopia baa sanad lagu korinaya waa ogolaanayda هذا نك الصومالي وحاول يبغى مارك حتى كينيا مارك درشادي يا سنة دو كنا دلنا هو ماركان أكستو كان الكوستيشن كو وقيحية متكستنا كوستيشن وقيحية لكن كي صوماليا وحين نقطي وحين نقطي صومالي دي بقى وحين نقطي ضد أنا كل حساب تمينين نك الشخصي وحكم كدونية ربيتان كيسي واحد أفصل ومدة يعني أبا بعضه diyaar u inuu asaga wax u gaaro marka in aniga mudada la yara kordhiyo iyadoo la leeyahay maadaama ay tahay transition from elder based election or 5.4 get 4.5 get to a universal suffrage even if it's more than a year and I have no problem with that to be honest to you I see this tanamu arka inay yani laga soo gudbo af Soomaaliya u sheegay in laga soo gudbo waxa guddi kale uu dooranayay iyo odayaal dooranayeen oo loo gudbiyo maxay shacabka weynihii Soomaalida waxaan arkaa inay tahay arrin xalaal oo wanaagsan oo haddii hataa 2 sano maartay ay ku qaadato ziyaade hal mar in la iska soo afjaray midayada dadkii waxay leeyihiin wadankii amni kama jiro oo deegaanadii dadka laga soo dooran lahaa musharaxiintii ay u ololo tagi lahaayeen ma jiro dad qaar ayaa waxay aaminsan yihiin
arrimaha xuduudda weli in la asteenin oo dastuurka uu sheegay in qof kasta oo Soomaali hooyadii aabihii Soomaaliya oo jamhuuriyadda dhulkeeda ku nool uu xitaa doorashada inuu ka qayb qaato ay noqonayso taasi oo xitaa ay soo hoosgelayso arrimaha Somaliland xal in laga gaaro u baahan dhanka Djibouti ay dad qaar waxay leeyihiin haddii xitaa dastuurkii aan la fiirin oo dastuurkii la fiiriyay in qofkii Djibouti jooga ama qofkii Gaarisa jooga ama qofkii Jigjiga jooga xitaa inuu coday ay dastuurkii waxyaabo badan oo dastuurka qabyada ku jiro ay suurtagal ka dhigaysa in doorashada horta aniga baarlamaan u istaagi jiray dad la daadgureeyo oo sifa ay doorasho u soo ridaan loo daadgureeyo adduunka wax ka adag ma jirto aan ku sheeg haddii lagu dhaho 2,000 oo qof oo kaaga ridi lahayd Gaaris Nairobi laga daadgureeyo ciidankii ka dagaalamay Ciraaq oo kale la daadgureeyo bay ku noqotay ma gartay Soomaaliya macna 2,000 oo qof oo 3,000 in horta meel ay ku dagaal loo sii hagaajiyo oo in inta laga qaado gabaaridii oo wixii oo dhan wadan la soo way adag tahay aad way adag tahay horta shacabnin gurigiisa ka soo toosay on baa waxa ridi kara ma ogi in la soo daadgureeyo meel ma karama marka Djibouti dad ka tagay Djibouti iyo dad soo Ethiopia ka tagay iyo dad gaas ka tagay waxa ka tagay oo ma isbedel keenay waxa taa iyada qiimo kuma fadhido maxaa haray aan ku sheegay dhigeyso أنا مد وأنا أمسناي waxaan aaminsanahay Soomaaliya in lagu sameeyo tirakob in lagu sameeyo biometric national ID oo ninka qofka Soomaaliga irin kaarka Kenya aan haysto kale oo asagana irin kaarkiisa Soomaaliya muujinayo uu jeebka ku haysto maxaa adduunkii maanta hadda waxa ka dhacay Trump markuu hadda uu tweet sameeyo oo dhag uu sameeyo kuwii gurigiisa ku jira House of Representatives on arkin adoo intii la fadhido arkin adduunku wuxuu iska noqday tuula iska noqday Afrikaankana integration badan baa dhici doona oo dadkii way isku socon doonaan sidii Kenya iyo Tanzania iyo Uganda isku socdaan iyo Soomaaliya iyo Ethiopia iyo Kenya isku socon doonaan isku socodkaasi waa inuu fududeeyo nolosha labada dhinacba the movement of goods and services people goods and services macnaheedu waxa weeyaan badeecadii la geynay adeegihii la geynay iyo shacabkii maartay marna inta wax ka soo dhamaysanay marna inta wax ka soo dhamaysanay waa in la fududeeyo socodkoodii wadamo Afrikaan fara badan baad leeyihiin nin kasto Afrikaan ah baasaboorkiisa albaabka iga soo galo wuxuu doonaa ka dhamaysto wadankii Ethiopia kamid ah dadka marka la isku furfuro Soomaaliya waa wadan yar oo laakiin qariimo weyn leh dad aan dhalasho ahaan hatii aan aad uga fogeyna ay meel badan degan yihiin wixii sida loo kala ogaado ninka Soomaaliga dhabta ah iyo ninka maxay ahayd Soomaali oo laakiin walaalahooda oo jiraanka iyo ninka Kenyaanka kale iyo Ethiopiaanka kale waxa loo baahan yahay in dadka loo sameeyo ID cards koodi la boobsiye loo sameeyo marka loo sameeyo ID cards koodi baadan loo goon kara voting card maartalki qof aqoonsi wato baa loo goon kara kaarka codeyntii xoolo shaqay u baahantay waqtiga hadda naga xiga uu yar yahay ma laga gaarsiin karaa haayamay hadii shaqo adag laga qabto laga gaarsiin karaa hadii uu shubal iska dhaha weligii 100 sano hadda ka dambe laga ma gaari doono jiritaanka Soomaalida dhumi doonta iyaga baad hadda maanta waxaad arki kartaa nin ku dhashay Jima oo Soomaaliya ka badi أنا حاركي نقول يراه يقول عروسي بانه هو صومالي واللي قد أنا أم كهذا كهذا يقول هو يدينا الصومالي يدينا الصومالي وش أنا كان أصل كي الصومالي بانه وهذه في هذه الصومال لكن لما ودن وتكتر سنان كرتا ولا لما تكتر سنان كرتا لكن ودني الصومالي ودني كي بعد كتير من قرت كان كينيا كو الصومالية كينيا لين على حاجة بدن يدل بدون يساوي قيمة هذه أنا موجود مرتا يجلس النمي محيط بس كم موجود مرتا متحوينا يا برايم مينستر كينيا إيكن هذا الصومالي باتي لكن أنت مركان أنت أنا قبل كريوة أنا أردون حمر بنكيس تاجي إحنا ما سمعناش إنه كي جيبوتي جو صار ضرب بنكيس تاجي والك ومرة جيبوتي وجو مرة حمر ولا ما أصير دميل ودوني إنه مارتي أفرتو بالإنتيل لدورته وعلى يركب كلعر كي جارس وأنت كتو كي قبل الدهر الجوي أرد اسكو سيداي oo maartay u yiraahdo waxaan doorasho ka gali xamar mise Ismaaciil waxaan ka gali bas waxaan ka gali maxay galaadi ki joogi u yiraahdo waxaan ka gali Ismaaciilki gari waan ka gali ma
hargeysan ka gari yiraahdo midka xataa joogay carshi joogay meel baa lagu soo Ethiopian mustacmarka nama kala qaybin maalinka la isku imaaday gabigeeda ma la arko hadda laakiin meeshii lagu ogaa ka tiiri cadow iyo xabiibna soo dhaweyso cadowgaana ka tiiri alla isku muuji qiimaha ka soo bax adoo madaxweyne Mr Prime Minister Ethiopia ka aan ku arko adoo madaxweyne Prime Minister Soomaaliya ka Kenya ka aan ku arko laakiin hal yaraa inaan maalin banin uu sarrifto inkastoo mucaarad qaar ka mid ah maamul goboleedyada Soomaaliya sida Jubbaland iyo Puntland aysan ku qanacsaneen hanaankan xukuumadda Xasan Cali Khayre ama shaqada Xasan Cali Khayre beesha caalamka ayaa waxa ay wadaan dadaalo xoogan oo ay ku tageen Jubbaland oo ay ku tageen Puntland oo ay ku tageen Koonfur Galbeed Hirshabelle ay ku tageen bal socodkaas beesha caalamka ay maamul goboleedyada ku tagay maxay ka bedeli kartaa ama way ku soo kordhi kartaa doorashadan la filayo 2020 inay Soomaaliya ka dhacdo doorka beesha caalamka kulli horta rabitaanka Soomaaliya baa askari beesha caalamka shacabka Soomaaliyeed meesha u badan yahay rabitaankooda in bay ku qasban yihiin way fahamtay Soomaa midi ku taag waqti intaad dhaafsiisatay oo waqti dheer aad qaadatay markii lagu yiraahdo war waxaan aan si xalaal u sameeyno waan faramroojisan sidii tan ka dhacday hadda Kismaayo oo kale oo anigu ninkii ilmadeerka ana u sameeyay asaga wuxuu ku dhashay meel qabri daara korkeeda oo shay goos la ma gartaalkii dadka asalka ah oo asaga ilmadeer kore yihiin iyo hoosna way buuxaan meesha way joogaan dani way sira qabteen nimankan baalkii in yiraahdo nimankan nabadii nool laakiin haddaad isqabataan xamar inaad kula qabsato wixii aad isleedahay waad kaga adkaan kartaa kaga adkaaw laakiin imaaraat iyo dibadda lagu wareegay iyo qarannimadii waddanka oo la baabi'iyo waddankii oo la iibgeeyo gobolka Puntland oo la iibgeeyo ma noqonaysa xal way fahamsan markaan saa ku leeyahay yani comedy hebel baa iibgeeyay hebel ma iibgeyn waxaan ku leeyahay un xanaaqa waan ani aqoon fiican uma lihi laakiin sharaf iyo wanaag baan u hayaa rajo badanna waan ka lehen haatan dad baa weli aan rajada aanan ka dhimanin ha حتى أحمد شغف في عمو سوق بتاع دكار في عرب بدن أولو أماني ويجران لكن ولا روح كستو دمبو حولي هي مال مضافاني قرنك وأنا بركي الله هلا يا النبي هلا قرن نمضى إن الصوماليا وضن ده إجرت مركز وقاته يدبون اللان يجيب اللان يقلم يمحي يوحكروا ربعات يجعل سوي كرتا marka tiiba hadii la yiraahdo ninka Soomaaliya joogo aniga wadan yar baan haystaa Kenya ugu suuqtay oo Carabaan ugu suuqtay wal kasto yiraahdo horta jahilnima meesha ka muuqata aad weyn masadana uu saa yiraahdo jahilnima ma ka muuqata gobolka Garis ma antu taga wadanka la soo heshin kara ma gartalkay afar bari oo la gaarin ba gudaha lagu tuuray si sonka wax ka bedel keeni sonka soo gool maamulin horta ogaadaan Axmedoobiye ninka la yiraahdo Dani iyo galmudug dadka joogan iyo kulli waxa soo dhanbo Hirshabelle iyo meel kastaba inay koonfur galbeed inay sanko la mid yihiin caalamka oo dhan nidaamka jirana waa midaas oo kale awoodada waa awoodda sanko waxa sanko ka baxsan iyo kuwa kale anaga aan wada ognahay iyo Ali Joho ambasi joogi waxa ka baxsan ma haysan way fadda sama ya awoodii rasmiga ahayd سنترك نيروبي بيت الله أو درس من بحيث الله حمر بيت الله بركة هرت هؤلاء ترى قوم باكنتا يدونك درس كرتو نسب حمويا أقوانتي بس سلك وقشي أنا لو أنا رنتي أنا كونا أنجرسيني كونا أنا جرت كقادين والهرت الله هلا نبي هراي وهرت بصوماليا وضنا لإنه يجي هرت هؤلاء ومقدس أي تاعي حدود دي international community يوجد أو قيب كمدة هذا الأسوق جين كان ودن كره هذيك ورا السنتر كان كله يوجد دكت كريستيا وكست كريستيا إذا حمر إيه رال كان إن هذا الكل جين كره مركا هرتو أنا ما ويجرا أروح أنا سنة هاي بريق هرتو بحاجتي لو مدي ما نظام لسنة حوق له عدود له بعد أرسل كان لسنة تي بي ألف كيله وصومالي اللي جبر بريئت كيف يقدر تي هذا وي تكتي
mangustina noocaas iska heshiiska ahayn xeela silaas bay iska ahayn maxay ahayd tawadros iyo kulligood ilaa iyo maxay ahayd kulli isku mid bay ahayn manaliq iyo kulli hadda dadkii intaasoo 100 sano la xukumi jiray aqlibadan haystay walaalkaan adiga yaa xukunka haystaan tii way soo xirmatay that one is a close chapter markaad tahay blue eyed boy af ingiriis waxay dhahaan wiilka aada loo jecel yahay oo la kolkooliy sida hadda yuhuudda ay reer galbeed u kolkooliyaan maraykanka waxa lamidka ah oo waxaad dembigaad gasho dhanbo vitooda maraykanka ay ku joogto anagana kenya waxaan ahayn blue eyed boy of the region waxaan doonaan kula dhaqaynayna soomaalida warba ka daaya marka laan ethiopia u joogtay xuduudeed caankaasoo vito haystay oo ka adkayd soomaalida tii baan hadda fahmi laanahay hataa anaga wasaaradda arrimaha dibadda iyo monica juma waxay la waasheen meles bay laadahay meles ma joogo maanta abiin laha jooga oo awoogi halkan soomaali ah gardeelkay meegarad tii baan marka tii waan wareersannahay waa wareey aw tibiyada beriga wax kasta oo qaban jirtay tii baan laanahay marka min uhuru iyo tiimkan ay kulliya wax way dhamaatay bisaad oga sii gudbi lahayd this new reality qabtan cusub oo xaqiiqadan cusub oo soo degtay oo meel laga maray aanan jirin ha aan aragno sidii aan uga qabsan lahayn waxa weeyaan doqon rageediyo dibi xaas eebo meeshuu macal ku barto iyo macal loogu dhintaa meeshan buu taagan yahay marka maamul goboleedka u dhi kuwa jiiraankeena wax badan baa loo baahay inay ogaadaan inay iska bedesho hadda runtiina soomaaliya markii bisha koowaad la saxiixo saxiix lama sameyn karo laakiin final road showga ay ku sameeyaan oil blocks Soomaaliya oo bisha afraad oon la gaarin ay ku sameeyaan agreementski magartalkii loo saxiixo oo multinationalska ay la wareegaan waxay noqon doontaa wadanka ugu qiimo badan adduunka oo wadan kastoo dhan Mareykan ahaya Ruush ahaya China ahaya Japan ahata inay xiriir la yeelatay u baahantay maxaa dhawaa the new energy frontier bay noqonaysaa waad gartay sama mana foga shidaalkeeda badda hoosteeda ku yaal bariga markuu qorraacsiyo 6 bilood mise ka yar buu walaalka inuu ku gaaro umar baahna infrastructure weyn waa la soo saari markabku garab dhigan oo qaadanaya marka horta deentana waa laga cafinaya hadda marka horta Soomaaliya way ka haysaa markay ka hayso ma aha inay daliil aan ay tahay أنا waxay saatay nimankan madi nool markasta waxaan isku haysan waxa fulay baatiin magadalkii horgo'aana barkood adag qaata ay xogaa qunyar socod weyn bay iska yihiin dhan kastaba wadafanso markay local ay la xisaabtamayaan maamul gobolada la xisaabtamayaan ee markay international community region la xisaabtamayaan baad niman hadda ma aragtay sabab boode maaha waa qunyar socod marmar waxa la arkaa inay taaba ay fiican tahay laakiin ani waxaan isleeyahay bal qarankii intay Soomaaliya isu tagto reer Soomaaliya inta la isku tago in la yiraahdo way wada filan tahay ninba maalin buu soo gali oo xukun hadii uu xukumayo afkaar fiican keenaya la arkay afkaartii bal hadda aan wada hadlano wada midowno oo wadankan badbaadino waxa keen ugu dambeyntii arrinta aad ka dhawaajisay deen cafinta habeen hore ama ka hor Mareykanka ayaa deentii saxiixay inuu ka cafin doono ama sheegay inuu ka cafin doono Soomaaliya kulli reer galbeed maxay ka dhigan tahay reer galbeed horta midka marka laga cafiyo waxa loo ogoliyay inay deen cusub qaataan دين عصب أنا قاتل دين عصب القاضي أنا فارح مركز ويدز أنا قد دين وحنكو قاضي 3.5 مليون US دولار بنكو قاضي لونتيك إكسبرس تو نووير مثل لغة المامي والذي حاول يقول سعودي وما له سعودان لقرنين SDR وحلا نكو قاضي وخلط ديمي بعد بين هنا اسمه صوصاري كرت العقد وإذا فهمت سما سوماليا ودنك كليه وما أنت هدي الدين 3 بليون 4 بليون 20 هلان دولار هلان ده كذا اللي بيستدعي انتهى جاجين دبي نقول كرتو بل شمبرت يكو عيارتو شمبرت كل لا يكو اي امارتي اي كو عيارتو ما هذا لاب كان لوجلي او دمبو وهذا on the international shipping lanes the best قبل من دبا انت
maxay ahayd South America iyo North America baa inta Europe baa maxay ahayd Swiss-ka dhankeedii kor waxaad ag maraysaa Indian Ocean waxaad u socotaa ilaa China iyo Japan iyo India iyo meelihii industrial base-ka weelka cusub dekeday haddii la hagaajiyo 2 dekedood 3 dekedood la hagaajiyo markay ugu yar tahay hoos u dhacdo Soomaalida 20-30 bilyan oo dollar baa uga soo bixi every year investment capital ku baahanyiina waa less than 2.5 billion for each one of them waxay isku bixinayaan security ma loo baahan yahay waana transit cargo waa drop off drop maartay pick up drop off waad gartay soma 20 milyan 30 milyan oo containers ya 40 milyan baa la dhiganaya ay dhiganayaan oo kan inta uga qaadanaya markaas waxaa jira auxiliary maxay economic bankaranki qodobada loo geeyay biyo loo geeyay shell sinay haddana iyo maxay offshore blocks ki soo baxayeen hadda the place is going to become the richest maxay region marka lacagta iyada waxaanan ka markii la afiyo waxay ku furi fursad aad deemo ku raadsan karto deemahaas ma aha taanada oo kale inta taanada waa mid musuqmaasuq ku aadari maxaa taanada waxay ahayd mid laga qaatay syndicated loans bangiya laga qaatay bangiya laga qaatay lacagta waa musuqmaasuq ku jira ilaa 8% bay gaaraan ribada up to 8% كون لكن 1.5 ما قلت لك 1% بنقونيسا رباديدا ما تمحي هاد وixii korsaar keeda oo administrative fees kan overto وديرنا ما كل اماكن waxaad gelinaysaa waa mashruuc aad hubto inuu soo saari kaana hadda anaga aan gelnay treenka uu jiray markii hore ma gartaa halkay waa hal leen hadana laba leen ma aha dad baa xoolo ku cunaya bis bob iska hal iska boobay wadankii ma la deen la gali wadankii baa socon lahayd oo waxyaabaha hadda ka jira waxa weeyaan dib weyn ba ka jira inta anaga Kenya sheegay nimanka haday ay xoolaha si fiican u maamulaan qaniimada Soomaaliya ka dhalabna Soomaaliya haysta markii dunta waxaa ma xasanta ugu dambeyntii 20 cisho waxa ku sugnaa magaalada Nairobi Axmed Maxamed Islaam Axmed Madow oo doorashadiisa ay kala badan ka dhalatay inkastoo marar badan aad ka hadashay ama marar badan laga hadlay Axmed 20 cisho kadib Kismaayo dib ugu laabtay halkee hawshii Jubbaland iyo markii Jubbaland ku dhamaan sideed sano markaad horta madaxtooyada Mareykanka ma artay madaxweynaha 8 sano la doortaa 8 sano si kasta u fiican yahay wala nici Axmed Islaam anagu dhanba garab weyn markii uu galay meesha qabanay saan u garab istaagnay ilaahay ma sheekara waqti badan uu soo qaatay wax weyn oo la qabtayna oo aanan ka ahayn ammaanka magaalada Kismaayo ma jirto ayaa far badan way jirtaan oo dhirta meeshii xoolaha iyaga anaga haatay Kenya Soomaalida markii abaaraha daba dheer ka dhacaan ay ku barbixi jireen waa meeshan kulli dhuxsha laga dhigay oo loo dhufiyay arabaha iyo meel kasta oo dhanba wanaag badanna wuu jiraa oo loo nisbeynaya asaga daliil fara badanna way jirtaa hadoo kale waxaa fiican inuu ayr si aqli xikmad oo ayr iskaga baxa doorasho xalaal loo sameeyo saddex qof magacyahooda ii soo qara ana mid kala bixiye ya reerkayga markay geedaha hoostooda ay ku tashan jireen intuusan ingiriiska ma naate taasoo kale weli ma dhicin فهمت صوبه انا اوي waxa lagu daldalaa Kismaayo awowgii ya hooyadii waxa dhalay Asad Xasan Axmed waxa lagu daldalaa Kismaayo abay adeerkii Xuseen Bowda dheer waxa lagu daldalaa meesha ayada maligi hata lama garanay barkood iyo dad kale fara badan faliir iyo waad gartay sama taariikh beelada dhulka taariikh markii ingiriiska iyo Soomaalida isku laayeen xagga reerkanagii wixii dhanka bariga NFD iyo meesha isku mid bay ahayd kulli Jubbaland baa soo jiray ilaa macal gaaris abahay ku dad ugu dhawaa 45 baa ku dhimatay dagaalka ingiriiska dad yar baan qoysaska ugu yar baan soo markii dadka la sii kala bixiyo wadanka taariikh buu leeyahay taariikh markuu leeyahay waxa fiican in sharaf lagu maamulo وانا ودن صوماليات انا شرفكم مع هلو مامر اوكي احمد
waqtigiisa uu dhamaadee si xaraga leh ha u wareejiyo ha yiraahdo sidaad igu sharafteen waa kan waan igu sharafay ka cabsada laakiin haddii maangaabnimo iyo waan xoog baan ku haystaa kaale xoog iga qaado meel lama gaarayso inta isku dayda oo dhan bay ku fashilmeen maxaa keligii intuu qori qaatay waddanka al-shabaab kama saarin oo nooli asaga dad badan baa dhammaaday kuwii u lahaa meyd baan watay kulli meydadkaas iyo dadkii u watay oo dhan bay waa dadka nala dhashay annaga waad fahamtay soo maha marka meyd asaga un aabihii keli gurigiisa keli ka soo baxay may ahayn xareesha maxamed islaam keli ahaayeen oo annagaa meeshan u dhimanay annagaa ceenkan may ahayn hadda waxaa loo baahan yahay inuu si sharaf leh doorasho rasmi waxa u dhexeeyo centerka iyo kismaayana ma aha horta khaladka la samaynayo farmaajo iyo axmed weli baa is haystaa ma aha isma haystaan mareexaan iyo ogaadeen baa is haystaa ma aha isma haystaan ana ogaadeen baan waa garsama annagii meesha geynay baa haysanaa farmaajo ma geynay meesha asaga annagaa geynay meesha annagii baa le 8 sanana way dhammaatay wax hadda we have nothing to show for ayar meesha dhaaf maskaxtaada ka duwan ha imaato isbedel idan ha keento inta adiga aad keentayna waad ku amaanantay waad fahamtay soo marka meel aanan jirin yaanan loo doonin dadka waxaa weeyaan soomaalidu ay absamo hukuumado caynkaas ay baa la dhihi absamo iyo hukuumada waa soomaalida boqolkiiba 60 markay ugu yartahay way soomaalida marka isku daro ay boqolkiiba 50 ka badan yihiin isma haystaan inna isma haystaan meesha waxaa jiraan ku sheegi maamul baan rabnaa ilaahay uu noqday ninka la dooranaya nin ma aragtay jareer oo maxay ahayd Kismaayo uu noqda baajunta Kismaayo uu noqda nolosha ummadaasaan rabnaa in la badbaadiyo nolosha ummadda ninka dhintay dhimay ilaahay asaga camalkiisa wiil intii uu nabiga sheegay calayhi salaatu wasalaam oo saddexdii shay oo kaliya markuu qofka dhinto uu camalkiisa go'ayo taa waa nasiibkiisa nin kasta anaga xiriirkaan anaada noo dhaxayso kuma dhalin aniga abba kalaa ku dhalay si kastood ii jeceshahay markaan dhinto walad saalix maxay yadcu lahu ima noqonaysid wiil fiican oo baari oo aabihii usoo ducaynay intaan wada nool nahay uma xusla qaban karnaa war ummadda intay nooshahay waa nolol xun bay ku nooshahay oo wax u qaban intaan masku haysanaa okay waa hagaag haddii arrimaha Soomaaliya halkaas aan kaga tageynaa waxaan jeclahay inaan aan Ethiopia ugu dambeyntii barnaamijka soo gobay waqtiga awadi isbuucii tagay sidoo kale waxaa abaalmarinta nabadda lagu guddoonsiiyay Norway Oslo markii ra'iisul wasaare xukuumadda abaalmarintaas maxaa ay ugu dhignayd Ethiopia wallahi horta ninkan wuxuu sameeyay a fundamental historical change. Soomaalida waxay tiraahdaa libaax waxaa neef ka ridaa nimaanan garanaynin iyo wiil yarna ma garanayo wiil oo 12 jir hadduu arka geeri uu la socday oo hal ka mid ah libaax u qabsaday soo la socdan buu u haystay oo ku bilaabay waa arrin libaax nimaanan garanayno sidaas la mid laakiin nin garanayo xuduudiisu garanayo ka cabsani horta Dr. Abiy nin gadgadoonka Ethiopia aad ugu soo jiray maaha waana nin yar 40 dhowr buu jiraa laakiin wuxuu deemgareeyay inuu isbedel ka keeni karo wuuna keenay colaadii Eritrea u dhaxaysay uu tirtiray Ethiopia dhaxdeeda ayuu maaragtay waxyaabo badan oo hoosta ka karayay oo in markay qaraxdan Ethiopia ay kala carar lahayd kala tagi lahayd yu maaragtay qarax yarna barkood qarxeen laakiin meeshii lagu damiyey Soomaaliya Ethiopia wuxuu dhaxaysayna asna hal fiican uu ka gaaray har Soomaaliya Ethiopia waxay ahayd Ethiopia intay nooshahay dhaqan karo loo hagaajiyo Soomaaliya hal baabiyo Soomaaliya lama jirto waa qabaa'il yar oo meelaha si tugeel iyo ari loo ordahay dhulka naga leeyahay Soomaaliya waxay ahayd intay Ethiopia ay wax tahay Soomaaliya ma noqon kartaa naga aan burburina Axmed Gurey burburiyay Axmed Siyaad Barre burburiyay 77 haba ka daba imaadaan waa la isburburin lahaa laba ka adkaan karaan ma aha kama adkaan kartaa habashii Soomaaliya kama adkaan kartaa asagoo laakiin dadkii la burburinayay waliba la adoonsaday ahaa reerkiisa la adoonsaday intii xariga laga xirxiray la adoonsaday ahaa haddana maanta wuxuu leeyahay taariikhda horena ayaan aad u daba kicin laakiin new dawn aan hagaajino marka wuu mutaystay in reality wuu mutaystay ana halko shayga aniga
aan yara fahmi waayey waxay ahayd markay laba qof ay ummad isku keenaan oo ay midayaan ilaa Eritrea dagaalkeeda 100 iyo waxaa ku qof baa ku dhimatay Shimon Peres ninka Isaac Rabin iyo ninka la yiraahdo Yasser Arafat markii ay heshiiskii 88 Oslo Accord ka hagaajiyeen labada waa la siiyay bila sharaftii Nobel Peace Prize labada qof waa isla sameysay inta badana waa la siiyaa isla siiya labadooda marka waxaan la filayay asagii iyo cala aqal haddana waxay ku soo fiiriyaan geeskay arkeen waxaan maleynaa waxay go'aan ku gaareen kan unbaa hadda wixii horitaankii sameeyey dhulkii la isku haystay Ethiopia ma ahe maxkamadii ka dhacday oo Eritrea u goysay yaana ogolahay biiri hadalkan sama marka in a sense markii dad baa hadda waxay ku leeyihiin maxaa labadoodaba loo siin waay asagii ay sayid of work laakiin markaad critical u fiiriso ninkii wax horay oo nabadda ku keenay unbaa inta badan amutay wax badan buu ka bedel rabaa regionka marka runta loo kaca inkastoo qofka maanta niyad fiican ku hayay berri haddaad niyadiisa intaad ka faa'iidaysto la qabsan weyso adna aad tilaabqaadka la qaadi weyso dhaxdu gaari wuxuu dhigay warkan saan u jiiday baan ku rafaaday marka waa inaan iska sii daaya wada farti Soomaaliya hadda haysta hadday Soomaalida hadda ay ka faa'iidaysan weyso fursadan u taalo muddo markii la gaaro kadib oo wax iyagu dhaxda isku marmarnaadaan maanta oo dhan markii arsaba la wareegi lahayn maanta waxa weeyaan Amhara isma hayso qabiilka Amharada ahaa agaw oo 10 milyan agaw bay la baxeen oo gobol ayay leeyihiin bay rabaan dhiisana ku sheegay nimankii qiiminta Oromadii ku jirtay kulli waa laga baxay Amhara yar oo langaabay oo markay u badatay 5 milyan 6 milyan yaa ku soo hari doontaa Tigreed wata duurka gashay oo iyadii Ethiopia baa kala imaan baxay inteeday goosato way haysataa Eritreana way ka cabsanaysaa de Eritrea heshiis ka leed wayba goosan lahayd Eritrea ku biiri lahayd oo badda xagga ka socon lahayd Oromadii oo fara badan awoodina gacanta ku hayaan wayna yar dhib haysaa awoodda sida u maamul lahayd maxaa markii qof uu xabis ku jiro hadda guriga xabisna laga dhigo oo 16 sano mise 6 sano aan ku jirnaa ani adiga 3 diin aan ku jirno markii albaabkana laga furo kama baxayna maxaa waxaan moodeynaa in maaragtay ay albaabkan dan kale laga leeyahay dan ka baxna maxbadan lagu dhufta qofka muddo qaadan illa ma ogaad inuu xor yahay qofka muddo qaadan Oromadii oo barna ay leeyihiin wanaan orodno oo wax alla wixii aan tirtiri karnay oo dhan baan tirtirno oo aan qarban awood aan si xun u isticmaal si anaga loo isticmaali jiray ka xun aan dadka loo isticmaalna kuwana inay hatta ka baxaan bay ka cabsanayaan waxay leeyihiin nimankii aan garanaynay oo awiyahan soo xukumi jiray ma bafago soo meesha dhow ay la taagan yihiin oo ninka madaxa soo bixi banaanka waa dhawaadin marka saasa jirta the section of them na essentially Ethiopianimadii bay they cannot trust inay maaragtay Oromadii ay xoroodii inta kalena iska badaa marka waxa waaye geeli ninka ku soo baxay geel buu ninka soo baxay war geelayaale waxa la hadli waay geelayaale marka orsi ku celi war ana wax maamay geeli waxa shooba geeli waxa ileen had Soomaalida Ethiopia war Ethiopia maanta nin sheegan male Soomaaliya markay 3 shirtay Ethiopia leh horana hilmaamay Ethiopia lantiilay hadalay dhahan ila way soo lahayn jireen hadda ka hor Ahmed Gurey ba kulli wada haystay ya loo baahna aw raggeedi laakiin waxa markii ugu horeysay 20 sano ku dhawaad sidaal ayaa laga baaray gobolka Soomaalida oo iminka dhawaan rajeynaa in daha lagu rogo deegaanka Soomaalida iyo mas'uuliyiintiisa maxaa la gudban si ay ugu faa'iideystaan sidaasi iyo horumarka sidaas oo la qabsan karaan isbedelka Ethiopia ka socda iyo guud ahaan gobolka Soomaalida deegaanka Soomaalida 22 ceel bay horta meesha leedahay 22 janan oo Tigreed baa ku qorna aad ogtan karin buugi hatta wadanka Ethiopia kuma qorneen 5 baa loo ogolaa boqolkiiba 5 Soomaalida yaa loo ogolaa maanta maxaa loo ogol yahay boqolkiiba 50 inay qaataan wax ka soo baxa waa 1.6 trillion hal ceel has 1.6 trillion barrels meesha geeska ceelasha 22 block 1 block sorry one ceel ma oo waxa soo saaran qolihii Ingiriiska oo baritaanka sameeyeen
at today's rate oo gaaska waxa weeyaan $96 trillion. $96 trillion. 60 weeyaan per barrel. $96 trillion weeyaan. Economiga GDP-ga Mareykanka oo dhan waa $18 trillion. 400 milyan wax soo saarkooda both service and goods oo sanadkii waa $18 trillion. markaasay shan jibaar ka badan yaa halka yaa meesha ku jirta populationka anagana waa iska garanaysaa Soomaaliya dhan badan isku aruri way iska yartahay oo 50% lagu ogol yahay 25% dawladda dhexe ay leedahay 25% ka soo harana gobolada dhan loo qaybinayo haddana qaybtaadii gobolkaad ka qaadanayso ninkii intaa ku sameeyay oo kula qabto dadkiisa intuu kiciyay baarlamaanka Mariya Amhaaradii iyo Tigreedana way diidaneed waxay la waa maxad Soomaalida ugu kibrinaysa hormadan waxay leedahay Soomaaliya hal si xaqooda kuwii baa shaki ka qabta kuwii ku diri jireen waa daba ordaysa horta waxyaabahaas oo kale fara badan iska jira hadday raggeeda hesho iska dhaaf Soomaalida Ethiopia anaga iyaga dhaxdooda iyaga isbadbaadin Ethiopia badbaadin walaalahooda ormaday badbaadin anaga Soomaaliya bay badbaadin anaga Kenya badbaadin cid kastoo bay badbaadinay laakiin raggeeda la helaa raggeedii oo meel fog ku xisaabtamayo in la helaa si arsi wax loola qaybsan lahaa falkeeda haddaba la bilaaba hadda taa kuma mashquulsan oo NLF oo hadda maxay ahayd oo NLF oo ogaadeen National Liberation Front oo xisbi kale meesha ay ka dhiseen tartan anagana doorta Mustafa ogaadeen xaqoodii uu tirtiray oo dad kale uu siiyay aan ka ogolaaday aan kan sameey waxa socda meesha Soomaalida kale oo ogaadeen baan rabaa inuu anaga maartay uu nalaqo oo dhumeed gareeyo those petty small things ee ku mashquulsiin Soomaalida waxoodii elite-ka wax urdi maanta arsawi joogo kal baxfiis oo ma gali Mustafa ma qaad meesha anaga waxa xartay sameeynaa oo shaqada Tigreeda bariga hore kan nasiib kana saarteed wali ku riyoonayaan fursadii is there opportunity is there inaka ku tala laakiin ma kasban ma ka faa'iideysan that's the point haare oromada waxa weeyaan inta la garanayo oo la fahwa weyn waa 12 qabiil oo shaqo isku leh Guji Boran Jimma maxay ahayd Arusi baale orom boqol bay qabaan weyn oo barkood hata lahjadooda kala fogti adigii Soomaaliga ah oo afarta habeed oo isku luqadeed oo isku wada dhashay yaa rabta inaad عذاب لبحض محي هيد بيل موجنيسو markay ogaadeen hagaajiyaan ciise gurgura wax la hagaajinay ciise gurgura gada biirso wax la hagaajinay koo kale wax la hagaajinay dirbaan hayay oromada dalnaal orom kolba nin wax bilo ordi doona dadkii yaa ka dhaadhicin karaa waxaan shalayba ninka lumay muxuu yiri maxaa liga soo heeray dana bari baan lumay horta Soomaaliya waa mid ayada hada dadka soo garawatay bana ninka gudoomiyaha weyn nin qiimo badan aad iyo aad weyn Abdullah Shaqmaadi waa nin very well educated agar soma wali ma anay qaraabanahay waxa Abdullah Shaqmaadi wuxuu ku dhashay Gaars Bulatoro ku dhashay ma garaalkii Bulatoro ku dhashay Maxamed Shaqmaadi aabihina أنا ندري يرى مركزيته أنت كبحي كوليج يعني كشقينا السعودي أبي نحرق بدن أدق ما بدن بها أو يجينا نعلموها ولا يلا الشلة قبل هذا كم وين يقول كوينا بقرب يقول كوينا إلى أن حرست محمد عمر مشيم الله 1993 ما كان سوق قال 92 بحوا عسكري وهاي يعني مارتي عن حدي قلقبتي مركز دم إلى أن حرست إن من برعد بدري أنا صغير ويل البدن إلا هذا مارتي عن الله يصبر جيسياله لو بدك بدو الله بشين كله أباها يهين وان فاضمي أنا بالله وهو الكي يعني كان كل شيء ورأكست ماشي وهاينا وصل أنت أصو أرضي سو يربو ولي وها إن دينا وحري وكف كيرجري إثيوبيا أنا أقول كحري وكف كيرجري حدنا ننك ما عرفت إن آد وقيمة بدن وياه قلت سوا تلقينا سو قرب وقتي محمد كان أن كل شيء أردنتي وبالأهان أنا أسكولين وصلنا
xaruntiisa asaga wax ka soo koriya asagoo maraykan ingiriiska jooga yuu ku soo korinaya Garis mas-uul weeyaan aad iyo aad u qiimo badan laakiin waxyaabaha barkood tallaabada yar haddii meesha ogaadeenkii aad ka saari weydo waxbaa ka halaabi tallaabooyinka dambe isla gafi doontaa waad gartay sooma waad fahamtay sooma macani aniga hadda maanta haddii ma jirteenaya xisbi la yidhahdo uunin samaysto macana ogaadeen baa ku biri ma jirteen liberation movement la yidhahdo mase hawiya liberation movement qof kuma biray maxaad ii sheegaa qabiil baan ahay baan dhihi badii magacay tahay maanta waa maalinka intii laga weynaado meel kore waxaa la isku yeeri lahaa weliba ciddan lafweynte oo soomaalina marta sababteeda u burburtay iyadana soomaali ay deer u ahayd deer ay u ahayd inay maaragtay ay xaggii xaggaba la istixgeliyo kuwaana halgamaagooda ay ahaayeen abi isri intaasoo sane in soomaaliyana way ku xustaa inay ku jeclaato ayagana soomaalinimada ay ka tegin ay noqdaan marjici soomaalinimada ay noqdaan magacaasayto ooda in laga bedelo is laga dhigo wax lagu qasbay haddii Soomaali laga Soomaali ka dhigan inay Ethiopian wax la qabsaan hadda ayna ku xisaabtamin iyaga dhaxdooda inay isku ceersaan jigjiga وهذا داود انتاس ayaanu ku soo afmeerina barnaamijkii xog ogaal oo aad caawa si toos ah uga socoteen muuqaal baahiyaasi barnaamijka waxa idin la socodsiinaya aniga Jaliil Usmaan Samuura Farhan Calim gudoomiye ku-xigeenkii hore ee baarlamaanka dalka Kenya oo ah siyaasi Soomaaliyeed ayaa igala qayb qaatay waana u mahadcelinaynaa tan iyo tan barnaamijka Nuux Kidumo ayaa idin duubay muuqaalka quruxda badan tan inta barnaamijka xiriirka ku kulmi doona waxa idin kaga tagay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Soomaaliya noolaato